waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shokanta inoo haye waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shokanta inoo haye calanka tawxiidku runtii maanta farxad bay noo tahay inay soo gabagabeyno hawl muddo soconaysay oo ah inaan ka caawino Wasaaradda Arrimaha Debedda iyo Xafiiska Madaxtooyada habmaamuuskan protocol manualkan habmaamuuska ku saabsan hagahan muddo qaatay wadatashi badan baa la soo sameeyay waxaan aad ugu mahadcelinayaa technical teamkii labada wasaaradood ka kala socda Xafiiska Madaxtooyada iyo Wasaaradda Arrimaha Debedda waayo in badan bay la soo shaqeeyeen la taliyuhu wuxuu ka shaqeynayay inuu sameeyo hagaha si uu hagaha u sameeyo wuxuu soo saaray assessment reportkii uu soo saaray markii ugu horeysay oo ah in la eego capacity qaab dhismeedka labada xafiisood ee protocolka iyo waxay u baahan yihiin riboodadii baa lala wadaagay isla qaybta technical teamka wuxuu kala soo sameeyay protocol manualkii habmaamuuskii hagihii aan u baahnayn ah habmaamuuskii iyo hanaankii la marayay briefly through the support that was extended by donor partners to the government of the Republic of Somaliland. Consultancy services were engaged to assist the two entities, that is the Office of the President Protocol Unit, as well as the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs, to carry out an assessment of, among other areas, the mandates, the structures, their capacities in terms of human resources, equipment that they have, connectivity, and also institutional mechanisms existing in the area of protocol. maanta waxa laga hadlayaa mowduuc runtii aan isleeyahay waqtigiisa imika la jooga in laga hadlo hadaan islahaynba waa la soo dhaafay oo waxa bay ahaydba in imika waqti ka horeeya laga hadlo laakiin waqtigiisa waxaan imika u leeyahay dhaqdhaqaaqeena badan ee aynu ama caalamka kula xiriirayno ama ummadaha kale kula xiriirayno ayaa hadda moodaa inuu tartiib u soo kordhayo taasina waxay qasab ka dhigtay in protocolka uu noqdo shay muhiim ah oo aynu ku qasbanahay protocolku waa sharciga dawladnimada oo dhan bilow ilaa iyo dhamaad qaabeeya waxaan jecelahay in midka dhalintiisa la dedejiyo oo imika muddo la soo waday waan ku faraxsanahay imika 3 manual baa la soo bandhigay kii training manualkii assessmentkii baa la soo dhigay protocol manualkii baa la soo dhigay in fact waxaan jecelahay in af Soomaaliya loo bedelo in kamida dhalintiisa oo aan hayn tababare xitaa in ficil loo bedelo structure-kii lagu daro ay CSSI iyo hay'adda shaqaaluhu naga war hayaan in wixii lagu dhaqmayo la isticmaalayo oo ay u noqdo qayb kamida dhaqankeena maxamed cali baa si fiican runtii u qeexay hawshan halkan isugu nimay oo ah inaynu soo saaro nidaamyayaal ama habraac loo raaco protocolka habmaamuuska soo dhaweyneed iyo qorshe xafiiska madaxweynaha madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha debedda labaduba laba hawlood oo muhiim ah qaranka u hayaan marka looga dhinaca protocolka sidoo kale ceremonial events kaynu sameynay xafladaha aynu qabanayno habmaamuuskoodii inuu noqdo wax qoran oo la raaci karo oo dariiqii loo raacay leh marka waxay keentay arinta ah in mas'uuliyiintii ka shaqeynayay hawshaasi ku dhacaysay ay u baahnaan waxay u raacaan oo reference documents ay raacaan tixraac dokumentiyadiina waxay u baahnaan in horta qiimeyn lagu sameeyo maxaa yaala ee jira si looga caawin karo marka tababar hadii baahidu tay qalab haday baahidu tay gawaadhi protocolka u gaar ah haday tahay xirfado kale oo dheeraad oo protocolka u gaar ah haday tahay dariiqada loo marayo si wax walba ay jaan u yeeshaan tiibtiyo jaantana la soo helo runtii dadaal badan baa la galiyay waan u mahad celinayaa wasiiriyaaga sameeyay wasiir ku xigeenba tiimkiina halkan fadhiya wasaaradda iyo ka socda xafiiska madaxtooyada madaxweynaha qiimeyntii markii la sameeyay
iyo intii la isku celcelinayay xogta waliba maxamed cabdillah runtii aad isaguna kaalin mugla ka qaatay waxaan uga mahad celinayaa inay doonistii iyo jacaylkii inay labada xafiis horumaraan ama borotokoolkeenu kobco inuu yaallo xafiisyadiina taasaan qanaya maalgelin in lagu sameeyo xafiisyadii iyo waaxyihii borotokoolka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga hadliyo xarfaha ku qoran oo ficil loo bedelo bugaagtaynu hayno anagu wixii gacan aanu idinka siinayno diyaar baanu nahay waananu idinkala shaqaynaynaa performance-kana lafteeda way noogu jirtaa in la qiimeeyo shaqaalaha oo imika haddii upgrading la samaynayo dallacad la samaynayo shuruud waxa aynu qofka la helo 6 bilood oo u dambeysay performance appraisal reportkiisii haddaan la helin kaama samayno dallacad runtii nidaamkan waa dhaqan ay inaga maqan oo inaan aqoon dhaqanka caalamku wada ma aha way inaan aqoon ma caalamku siduu ugu wada dhaqmo habmaamuuska iyo hanaanka la rabo in loo waa mid inaga maqan mana aha oo keliya ka caalamka lagula dhaqmayo inaga lafteen habkan u dhaqano dawlad ahaan iyo dad ahaan iyo qudadkeena ayaa u baahan inaan wax baran ka barano caalamka waa inuu habmaamuuska iyo protocolka iyo aynu barano runtii waxaan hayto hay'adan shaqaalaha iyo cid alaaliya cidii ka soo shaqaysay ama soo maalgelisay hawsha tan iyada ah waan u mahadnaqayaa waa mid balaw ah waxaan qabaa in la kordhiyo